runtii iskoorka uu horeysay uu jabiyo madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iskoorkaas uu ahaa ummadda Soomaaliyeed yar iyo saqiir weynaan iyo kabiir qof walba inuu qalbiga ka hado qof walba shaqsi walba qalbigiisa ku noolaado taasi macnaheedu maana doo baxo ama xilka oo calaf u kali waayo in la ilaawayo qalbiyadeena maanta ka tirtiri karo cidna wuxuu noqday mid la jecel yahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu dhahay hadda intaas oo kun oo bilyan oo dadku jeclaadaan ee janno waa qofkaas because intaas oo kumanaan bilyan xataa way dhaafeen faante soo marka maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu noqday qofka adduunka loogu jecel yahay qalbiyadeena ay waxaa hadda madaxweyne xataa noqonin weligeeda ma aragtay madaxweyne oo qalbiyada bilaadan ka tago no hore loo mashay madaxweyne 4 sano markuu haay xilka hal mar la ilaahay una dhaafi allah alxamdulillah loo diraa laakiin madaxweynahan qalbi ay waxaday